wuxuu sheekhu wuxuu dadka ku dardaari jiray inay saddex duco ku ducaystaan marka ay sujuudsan yihiin saddex duco inay ku ducaystaan marka ay sujuudsan yihiin ducada koowaad waa maxay wuxuu yiri waxa aad oranaysaa اللهم إني أسألك حسن الخاتمة إلهك كل سنة يا خاتمة ونكسل دعاء الله بعد وحضرنا إن شاء اللهم ارزقني توبة نصوحة قبل الموت إله توبة نصوحة يقول أرساق انتهانا لمنكم فصدح النوى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلوب تجديو قلبي جيجا دينتها بالرسول markaan u fiirsaday saddexdan duco ikhwaani waa saddex duco oo aad iyo aad u muhiim ah nolosheenana si laxaad leh oo qoto dheer u taabanaya sababtu waxay tahay waxa intuba ay ku dulmeeraysanayaan arrin kaliya oo ah inaad adduunyadan ka hayaanto oo ka tagto adigoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala xaq ku waafajiyay adigoo ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ka raali yahay gaayada qofka bilaaadmigii uu nool yahay qofka muslimkii waa taawiya maanta ikhwaani adduunyadan fitankeegii waa farabatay waxa batay arrimaha la isku haysto bayna muslimiinta dhexdeeda xaq iyo baatilkiiba in mararka qaarkood sida loo kala sooca ay adag tahay inkastoo dadka ahlu xaqa iyo ahlu basiira ilaahay mar walba xaq garansiinayo laakiin adiga maxaa lagaga baahay ka shakhsi ahaan ahamiyadda ay ducadan leedahay bay garansiisay waxa lagaaga baahan yahay adiga shakhsi ahaan akhi naftaada badbaadi waxa laga yaabaa nin maanta oo dhan siyaasad ka sheekeynaya siyaasadii Soomaaliya ka sheekeynaya dagaalada qabaa'isha Soomaalida dhex yaala ka sheekeynaya waxa adduunka ka dhacayo ku xiiqayo oo fadhi dirir ku xiiqay ayaa haddana naftiisa dayacay akhi adigu haddaad maanta ilaahay aad la kulanto oo taadii noqoto oo hooyga aakhira aad ku hooyato ma leedahay ilaahay raaligiisa ما شيغانيسا وجه اد الله سبحانه وتعالى اد كلا كلنتو وجه wanaagsan oo ilaahay aad kula kulanto ma sheeganaysa naftaada badbaadi inta aad ikra ka sheekay ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya ayaa maalinta qiyaamaha surtaagay ilaahay qabiilna soo wada urin maayo reer hebel baa la xisaabinaya la oran maayo maalinta qiyaamaha oo xisbigii reer hebel baa la wada xisaabinaya ama jamaacadii reer hebel baa la wada xisaabinaya ama gobolkii reer hebel ama degmadii reer hebel كل آتيه يوم القيامة قفر بابا مالك قيامها إلهي سبحانه وتعالى يسوي كلية وعد صعوتها يعد الدوديسة يعد دفاعيسة أين الجنوب مالك قيامها إلهي سبحانه وتعالى يسوي تاريخ أهمية الدعوة كان إليهين وحيكا أن بقى ضيان إلى إلهي بريسو حسن الخاتمة إلهي خاتمة يقول هذا الشيء dad baa ikhwaani iyagu ahli cibaada aha haddana intii aanay dhiman ka hor isbedelay oo caqiidadoodii bedelantay oo cibaadadoodii ay bedelantay oo sunnihii ka leexday dad baa jira madaalimta iska ilaalinta inay dadka dulmiyaan laakiin qabla al-mawt madaalim badan ku dhacay allahumma yasrika husn khatima ikhwaani dad baa naftu ay ka baxday iyagu sujuudsan dad bay naftu ka baxday iyadoo kitaabka ilaahay akhriyayo uu hor furan yahay dad bay naftu ka baxday iyagoo kacbada dawaafaya dad bay naftu ka baxday iyagoo carafo taagan sheekh maxamed rashaad oo garan qasar rahimahullah ta'ala dad bay naftu ka baxday iyagoo sooman ikhwaani adii biritoole markay maalintaadii noqoto geeridu maxay ku noqotaa maadoo ilaahay caabudayo maadoo ilaahay ka baqanaya adigoo iska ilaaliyay حقوق ذلك بلادك يقول ليه أديه مظالم في إسكال إدارية أديه دين مسلم أن قاعمه لجري أديه حنتي مسلم أن قاعد لجري أديه عرض مسلمين أن قاعد لجري سوى حيكون من نطق أديه حاصل نبوة الله قصدي حسن الخاتمة إله مربو البويديسو خاصة وأنت في السجود تكلنا وحتى رهبا استشوق ويري إله الوجوه أرساق الله من توبة النصوحة قبل الموت توبة النصوحة waa maxay ikhwaani waa toobad lagaaga meelo oo lagaaga dhaqo dintii aad gashay oo adigoo saafiya rabbigaagi subhanahu wa ta'ala ku abuurtay aad la kulanti weeyay توبة النصوحة
إلهي بقى وحنا قال قف ولو بالآذن وقلدما ولكن التائب من الذنب كمن لا ذنب له قف الذنب كتوبت كنا وسيدي قف أن ذنبي بالجنب توبة النصوح عن الذنوب تلقوا نقع الذنوب تلقوا ما يراه سيئاتك أيها لهم ما يراه وحلل إله أنت أنا لمن يجريد أنا إيمان يقول كي آخرة أنا كو أرورين إله توبة يوافج حتى لحظة وضم بيسين ولا شاء هنقطه إله يوافج ومر الله على مركز نفسه كعبحه والوكر رقاق خاص تكان كاي ولا حري سوقاي ولا حري عمل صالح حد بمجره اللهم بأعماشا حسنات كوغا يكون صعون أيام أنت ما حيث لي إلا حتى اللي بيشاهد كذب مساجد كان تذكير سوا كاملة حواليها المحل العكس أقولني أيها كاملة قولي على قوم تقول استوى كاملة إن عيل بيا أو تدخل أبو قديمة كاملة ولد صالح وهو سدعني أيها كاملة لكن أعماشي أدو أد إسهانت أو سميني سي ولوكلتي تكلنا ويا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إله قلوبك قديو قلبي قدين هذا تصل سلف وحورن جرين إياك فإن دين الله واحد إياك والتلون فإن دين الله واحد تجرورها نقول تجرورها صوت غنا تجرورها نقول هيس بدلين معلم بقى يعني سيد الدبيشة حاجة دينع دين إلهي كجا إيمان دين إلهي هو مد هيس بدلين ثبات كوير دين إلهي واحد شرف ما نوارك شيء ما أنت هناك وارك دين إلهي سبب شو سنة شرف سنة وارك شيء ما أنت بدعه وارك دين إلهي هو مد سنة دين اسمه بد شو نسأل الله عز وجل إنه جمانتهم بحسن خاتم لوا ساقه إنه توبتنا صحيح لوا ساقه إن دين تيسنا نوصه إنه مسلمين ومؤمنين بإذن الله سبحانه وتعالى أن نذكر الله وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله